السلام عليكم كسر دوادا تاريخ نولادك أصلي حسن عبادة أصلي حسن عبدي عبادة waxay ahayd gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee noqota duuliyad diyaaradeed isla markaasna ka tirsan ciidanka cirka ee Soomaaliyeed asli waxay ku dhalatay degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan ee dalkeena Soomaaliya sanadka markuu ahaa 1958 asli waxay ugu baxday dugsiga hoose isla magaalada Buluburde intaasi kadib aabaheed oo ahaa boolis darteed ayaa waxaa loo bedelay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sida darteed dhammaan qoyskeeda waxay u wareegeen isla magaalada Baydhabo asli waxay halkaas ka sii wadatay waxbarashadeedii dugsiga dhexe waxayna halkaas ugu baxday waxbarashada dugsiga dhexe intaasi kadib aabaheeda oo boolis ahaa ayaa haddana waxaa loo soo wareejiyay waaxda booliska ee magaalada Muqdisho asli waxay magaalada Muqdisho ugu baxday dugsiga sare khaasatan waxay ka baxday dugsiga sare ee Raaga Ugaas ee magaalada Muqdisho markii ay dhameysay dugsiga sare waxay ku biirtay ciidanka cirka ee Soomaaliyeed gaar ahaan dugsiga tababarka ciidanka cirka ee Soomaaliyeed ee Afasiyooni ee magaalada Muqdisho waxbarashadeedii kadib waxay tababar u aaday dalalka Talyaaniga iyo Mareykanka sanadkii markuu ahaa 1976 bishii September 9 ayay ahayd markii ugu horeysay ee asli ay noqoto duuliyad diyaaradeed oo rasmi ah burburkii kadib asli waxay ku noolayd dalka Mareykanka halkaas oo ay ku soo qaadatay waxbarasho kala duwan asli markii ay tagtay wadanka Mareykanka waxay sii wadatay waxbarashadeeda khaasatan waxay halkaas ugu baxday daaweynta dadka ama dhakhtarnimo iyo xisaabiye asli waxay baal dahabi ah ay ka gashay taariikhda Soomaaliya Afrika iyo Carabta sababtoo ah asli waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee Afrikaan ah isla markaasna wadankeeda uu ka tirsan yahay jaamacadda Carabta oo duuliye noqota